xildhibaan Mukhtaar Xaaji Maxamuud Diir Qaraadh oo kamida mudanayaasha golaha guurtida Somaliland ayaa shacabka uga mahadnaqay sidii nabadgelyada ahayd ee u dhiibteen codkooda isla markaana ay uga qayb qaateen doorashooyinkii dalka ka dhacay. sidoo kale xildhibaanka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uga mahad celiyay inuu ku dhiirado qabashada doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada, taas oo uu ku tilmaamay inay tahay guul Somaliland u soo hoyatay. waxaan markaan u mahadnaqayaa shacabka jamhuuriyadda Somaliland ee gartay inay si nabadgelyo oo wanaagsan oo qurux badan ay u codeeyaan ilaashtaan xasiloonidooda iyo wadajirkooda. marka labaad waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku dhiiraday inuu qabto doorasho isku sidkan oo doorashadii golaha deegaanka iyo tii baarlamaanka oo waqti badan dib u dhacday. taa deegaankeeda taa golaha wakiilada ee maanta dhacday waxay u soo hoysay Somaliland guul caalamka iyo meel wada kastaba. waxaan kale iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa komishankii doorashooyinka qabtay in ilaa imka wax cabasho oo weyn aanay ka soo noqon. ciddii cabaytana ay si wanaagsan u dhigtay oo laga yaabo inay tagto meelihii loogu talagalay ee loo gudbinayo cabashooyinka sida maxkamadaha dalka oo iyaguna ay xaq u leeyihiin. qofku wuu caban karaa waanu shaqeey karaa, laakiin waxa muhiimadu tahay inaan wax qasiir rabshad midna sameyn uu maro wadada sharciga hay'adda loo jeexay. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu mahad celinayaa shacabka jamhuuriyadda Somaliland sidoo quruxda badnayd ee doorashada maanta maxay uga qayb qaateen. geesta kale Caaqil Mawlid Iimaan Mooge Xirsi ayaa doorashadii isku sidkanayd ee dhawaan dalka ka dhacday waxa uu ku tilmaamay guul u soo hoyatay Somaliland, isagoo uga mahad celiyay shacabkii codeeyay iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo ku suntan qabashada doorashadaasi. hadda labaadna waxa iskale shacbi weynaha reer Somaliland doorashada xorta iyo xalaasha u dareeray. waa guul Somaliland soo hoyatay, waa guul dhammaanteen soo wada hoyatay ayaan leenahay. waxaanu u mahad celinaynaa dhammaan ciddii fikir iyo afkaar iyo juhdi iyo dadaal intaba gelisay. ugu horreyn waxaan mahadnaq marka Ilaahay laga yimaado leh shacbi weynaha reer Somaliland oo kayuga dheer iyo bacadka intaba ugu samaray xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland oo madaxweynuhu ugu horeeyo. madaxweynaha waxaan leenahay waa guul madaxweyne, waad ku amaanan tahay doorashooyinka wanaagsan ee ugubka ahaa ee isku sidkana ee sida wanaagsan quruxda badan loo qabatay taariikhdana ku xusi doonto madaxweyne.